qubuuraha muslimiinta Niagara Falls ee dalka Canada waad u jeedaan gadaashay maanta qof walaal ah ayaan soo raacnay janaasadiisa marka ilaahay ha u naxariisto qabrigiisa waan sacalaha ugu dhigo annagana waxaan is xasuusinaynaa ikhwaani gurigeena oo rasmiga ah kan waa gurigeena rasmiga ah أول منازل آخرة قولي كول الدقاء أنت واي هدي وميشان أريئا كوفة الشلنتي وحي ميشان كدن بي وحاواي إلهي سبحانه وتعالى أنا أخذ بي مركا وحان إسحسوسينينا إن لوصو ديار قرو قريان ما أنت وحا كدوغان مid taajir ah mid faqiir ah dadkii oo dhan intay ku wada joogan yihiin adduunka markii la joogay mid guri fiican uu ku jiray mid meel fiican uu degnaa mid boqor uu ahaa mid madaxweyne uu ahaa hadda dhammaantood intay daris ku wada yihiin laakiin waxaad ogaataan qubuuraha hadda u jeedan saan u siman kor waa ka siman yihiin laakiin hoos kama siman marka waxaan is xasuusinaynaa inaan u diyaar garowno nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray limithli haadaa faaciddu idaa dakhala almaqaabir yabkii nabigu wuu oyn jiray sababtoo ah cusmaan bin cafaana waxaa la weydiiyey cusmaanow janno iyo naar markii laga sheekeynaya ma oynaysa qabuurtu markii laga sheekeynaya maxaa u oynaysaa allah nabigan ka maqli wuu yidhi awal manaasil aakhira marka ikhwaani waxaan isu dardaarmaynaa gurigaaga u soo diyaar garoow qof kasta meeshaanaa la dhigaya zayn alcaabidiin raximahullah wuxuu leeyahay taqaasama alahlu maali bacda ma insarafuu wasaara wisri calaa dahrin faafqalanii uu leeyahay qofka markii la duugo xoolihii dad aan shaqaysanin aan iskugu imaanay waa loo tashanaa xoolihii dhaxlaa la galaa adig iyo kafintaada iyo camalkaaga meeshaan kuu dambeynaysa waxaa la rabaa xoolahan adiga aad adduunkan aad ku haysid soo hormarso imaamu shaafici raximahullah wuxuu leeyahay dadka waxaa ugu fiican qof isagoo adduunku jooga qabrigiis soo nuurisid dadka idinkaa u jeedaan maanta gadaashay way soo raaceen nabigeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam meedka waxaa soo raaca saddex laba way laabanayaan uu yidhi nabigu camalkaaga baaqi kula noqonaya ehelkaaga iyo xoolaha fiiri ambalaasti lagu keenay iyo gawaarida idinkaa u jeedaan oo dhan waa la celinayaa hal kula joogayo ma laha wallahi haddaa ogaan lahayd hadda markaan ninka qofkaan markii la duugo waa la kala cararaya haddiiba marka arrintii lagaa kala cararaayo waxaa fiican in adig aad u diyaar garowdid oo meeshaan isu soo diyaarisid malakumood mu kula tashanaayo malakumood kuma dhahaay beryan kuu imaanayaa cid macnaha maanta kula tashanaysa ma laha ilaahay wuxuu leeyahay aynamaa takuunuu yudrikkum almawt walow kuntum fii buruujin mushayada hadalka waxaan ku soo gebagabaynayaa aan u soo diyaar garowno gurigaan qabrigaan aan u soo diyaar garowno gurigaaga rasmigaa inta waaye guriga adduunku waxaa waaye ma aha xayaatadaas xayaatada anaga aan joogno xayaatu dunyaa tan waxaa waaye xayaatulbarzakh waaye ilaahay wuxuu leeyahay yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira haddii maanta tawxiidka oo adigaa si fiican u soo sugtid oo adigaa si fiican tawxiidka u soo qabsatid markii munkar iyo nakiir ay ku dhahan man rabbuk waa ka jawaabaya su-aashaas hadda waxaa la rabaa qalbigaaga geli qur'aanka akhri dikriga badi beri haddii oo adiga maanta oo lagaa kari lahay heesaha munkarka lagaa kari lahay mar alle markii sakaraatumood aad gaartid waxaad dhihi doontaa ma lagaa karaayo marka waxaan isu dardaarmaynaa qubuuraha muslimiinta dhammaantood allah u naxariisto qubuurahooda rawdatu min riyaad aljanna allah ugu dhigo annagana dadkii kuwaansa qaatay allah naga dhigo muslimiinta meel kasta ay joogaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu